kufsiga haweenka Soomaaliyeed oo goor hore miyiga ka soo bilowday ayaa loo arkayay mid si dabar go'aya kulkii magaalooyinka la soo galay dadkuna ay wax barteen oo horumar la gaaray balse taasi weli lama gaarin oo 3 bilood ee la soo dhaafay waxaa soo badanayay kufsiga iyo dilalka loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Puntland dibadbaxayaasha oo aamus ku maray jidka rugta dawladda ayaa ku horbanaan baxay wasaaradaha cadaaladda haweenka iyo arrimaha gudaha barnaamijyaasha ayaa watay borar ay ku muujinayeen ujeedooyinkooda oo ay kamid ahaayeen kufsigu qabiil ma leh oday beeleed garsoor ma noqon karo cadaalad soo daahday waa cadaalad la waayay iyo erayo kale waxayna ololahooda ugu magac dareen cadaaladdoon. On our silent protest today, we demand 3 main objectives. Our first objective is for justice to be served. Our second objective, which is very important, is information sharing with the public. The authorities must share information with the public, and we promise you we will not stop this protest until justice must be served. مسيرة اسمها انتفاضة العدالة. لدينا 3 مطالب. أولاً عدالة ناجزة، ثانياً مشاركة المعلومات مع الشعب، ثالثاً نريد أن نخبركم بأننا لن نتوقف حتى تتحقق العدالة ونراها بأعيننا إن شاء الله. sababta halkan isugu ka soo saartay waxa weeye inaanu doonayno 3 dalab. 3 dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo. tan labaadna waxa weeye in cadaaladdu ay waqti aysan qaadanin tiro badan. tan saddexaad waxa weeye in la wadaago xogta waa in la wadaago shacabka oo la wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego markasta. mudaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha. xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado. ma joojinayno ilaa la helo cadaalad. cadaaladdu hadal maaha, cadaaladdu waa ficil la sameeyo. waa kufsadihii oo la soo qabto oo la mariyo sharcigan iyo constitutionka Puntland waxa uu qorayo. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo dibadbaxayaasha la kulmay ayaa sheegay in baaritaano lagu wado dadkii ka dambeeyay kufsi iyo dil loo geystay gabdho yaryar iyo haween gaar ahaan kiisaskii ka dhacay magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo. kufsiyadii dhacayay intoodii badnayd waxa loo hayaa dadkii la qabtayna waxa ku socda baaritaan haddii la ahaydna cadaalad ayaana la horkeeni doonaa. waxaan rajaynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dawladdu ay ka qaadato haddii la ahayd muddo aan fogeyn. marka waxaan rajaynaynaa dadkuna inay isdejiyaan, dadka aan la kicin, la sugo hay'adaha cadaaladda iyo dawladdu go'aanada ay ka qaadanaysa haddii la ahaydmo iyo sharciga la waafajinayo dadkaas. inagu cidna ma rabno inaynu haddii tacaddi dhaco tacaddi kale in la sameeyo lama rabo. dadka kaysaska loo hayo waxay rabaan baaritaan cadaaladda la waafajiyay in la marsiiyo haddii la ahaydmo. ciddii lagu helana cadaaladda la horkeeno oo ay helaan waxay xaq u yeeshaan haddii la ahaydmo. dawladduna arrintaa gacanta ku haysaa. aad iyo aad baan idinkugu idinkagana mahadcelinaynaa inaad dareenkiina muujisaan oo hadda maanta bannaanka u soo baxdaan. wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland Aamino Cusmaan Xaaji ayaa sheegtay in hay'adaha garsoorku maxkamadaynta eedeysanayaasha dambiyada kufsiga geystay ay u madax banaanaan doonaan oo aanay wax talo ah ku yeelan doonin odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. waa arrin aan soo dhaweynayno, waa arrin aan idinla qabno, codkeennana waa midaynayna haddii aan laydmo. kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dawladdu ka qaadato, laakiin odayaasha wax roola kuma laha. kana siin mayno haddaan dawlad nahay, odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola. diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu iyadu ay hogaamiso. cadaaladdu waxay u taallaa oo loo doortay waa dawladda. ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Garowe.